munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweeyay taageerayaal mug iyo miisaan ku leh oo ku soo biiray xisbiga kulmiye kana soo degarto xisbiga mucaaradka ee wadanaya lagu qabto Hotel City Palace ee magaalada Burco. Taageerayaasha waxa horkacay siyaasiga caanka ah Cabdirasaaq Jaamac Maxamed oo kamid ah siyaasiyiinta culus ee lafdhabarka ku ahaa xisbiga wadani. Aamina Saad oo ahayd gudoomiyihii hore garabka haweenka xisbiga gobolka Togdheer. Siyaasi Cabdirasaaq Maxamed Toor ayaa si cad u sheegay inuu si rasmi ah uga mid yahay xisbiga talada dalka ee kulmiye isla markaasna uu macaasalaamiyay xisbigiisii hore. waxaan doonayaa inaan halka kan ka iraado waxaan ka tirsanaa xisbiga wadani waa run odayaashiisa iyo madaxdiisaba waanaha waa xisbi qaran nin odayaho qaranka u madaxina gudoomiye u yahay sida dadka qaarkii anigu nin caytamaya mihi laakiin waanu isnabadgeliyeynay wada deegaan iyo oodba la wadaaga ku jira aad iyo aad baan iyagana halkoodaanu ku hambalyeynayna u daynaynaa annaguna halkaanu u guurnay baanu taageeraynaa inay guuleystaan ku dadaalayna inaanu soo saaro ku dadaalayna dhammaan taageerayaasha iyadiina guda iyo dibadba waxaan ugu baaqaynaa inuu go'aankii halkan yahay inay halkan tahay halkii guusha. Aamina Saad oo kamid ahayd mas'uuliyiintan ka soo digarto xisbiga wadani ayaa iyaguna halkaas ka hadashay. waxaan tusayaa gobolka inaan raggaygu raacsan yihiin cuqaasha salaadiinta waxgaradka dhalinyarada ay bahweyntu ay tootalis in ay miyi iyo magaalo tuulo ay ugu qanacsan. gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan, gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye iyo Jaamac Xaaji Axmed oo ku hadlayay afka golaha dhexe xisbiga kulmiye ayaa si niyad ah u soo dhaweeyay taageerayaashan ku soo biiray xisbiga talada dalka ee kulmiye. idinkiyo taageerayaashiina gacmo furan indha furan qalbi furan baan idinku soo dhaweynaynaa. runtii xubnahan aynu soo dhaweynayno aynu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa waa xubno aynu maanta aynaan baranayn ee aynu naqaano waxqabadkooda iyo taariikhdooda iyo miisaanka gobolkan ay ku leeyihiin. xisbiga kulmiye waa lagu dhex noolaadaa waa xusbi aan la kala lahayn waa xusbi dadku wada leeyahay oo loo hanweeyahay oo dadkuna jecel yahay. cuqaal odayaal haween iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa iyaguna niyad qalbi furan u soo dhaweeyay mas'uuliyiintan. xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka raggii ugu mudnaa buu ahaa cabdirasaaq maxamed toor raggii ugu firfircoonaa buu ahaa. waxay tidhaahdaa soomaalidu nin wax ku yeeli karaa wax ku tari kara ninku wax ku yeeli karaa wax ku tari kara waa dad wax tara. annaga hareeraha ka soconay annaga maaragtay wadna annaga la socono garab taagan hadday taageero tahay iyo hadday soo dhaweyn tahay labadaba annagoo ku hadlayna afka cuqaashooda waxaanu si mug iyo muusaan leh ugu soo dhaweynaynaa bahweynta xusbiga kulmiye inay si mug iyo muusaan leh ugu soo biiraan. jaweynahay inay qayb libaax ka qaadanayaan bahweynta xisbiga kulmiye. farxad weyn bay noo tahay caawa ku soo biirisa aad nagu soo biirteen cabdirasaaq maxamed jaamac halyeygii weynaayo gobolkan oo ah nin siyaasi ah oo caan ah gobolkan xilal badan ka soo qabtay. aad iyagana u salaamayaa waxaan kaloo salaaniyo soo dhaweyn isugu darayaa halyeyga cabdirasaaq maxamed jaamac iyo halyeeyada Aamina Xasan Samatar. gabagabadii munaasabadaasi ayaa waxa soo gaan kicisay shucuurta ka qayb galayaashii lagu soo gunaadaday. ragihiidhigu boqolka tegey naftiiyo maalkana ragihii maali qudha ka tegey raggaan baasuhukiyo baska kala jeclaay ragihii dhimashada ka xigay ciidan inay dhashaan misana ku gadahooda ahee geesinima ku daray nawaaduuye maxaha cayda uga dhigtee. cabdirasaaq cabdilaahi shiikhadan cabdirasaaq Koronto telefishinka madaxa bannaan Somaliland Space Channel gudaha magaalada Burco.